balse waxaa la oran karaa wuxuu xidhay rikoorka dhimashada meel aan laga helin ehel iyo aadami kale oo u gargaara midna. Assalaamu calaykum. Lama galay goobo dadkii kale aan dib loo arag, muquurtii aan laga soo noqon. Cabsidu waa dareen ku lamaan abuurta aadanaha. waa eray tilmaamaya xaalad khatar ah oo soo food saartay qofka bani aadanka ah. waxaa jira goobo halis ah oo dadkii kale aan dib loo arag. silsiladda lama galay ayaynu kaga warranay qaar ka mid ah goobahaas. maanta waxaynu u jihaysanaynaa dhinaca badda. waxaa la sheegaa noolaha marka 10 meelood loo qaybiyo in 9 meelood oo ka mid ah ay badda ku nool yihiin. maalin walba waxaa la arkaa xayawaanno aan noocooda hore loo arag. shaki kuma jiro inay jiraan qaar badan oo kale kuwaas oo uusan aadanuhu weli arag. ogow daawade, gunta baddu aad ayay u qoto dheer tahay, waxaana jira meelo badan oo aan weli la gaadhin. doonteennu waxa u shiraacanaysaa dhinacaas. sannadku markuu ahaa 2015, badmaax lagu magacaabo Guy Germer oo ku magac dheer Dr. Deep waa 50 jir ku taqusay cudurrada cunaha, sanka iyo dhagaha. waa nin xiiseeya dabaasha, gaar ahaan muquurta dheer ee hoos loo gaaro joog aad uga fog oogada sare ee badda. sannadka aan soo sheegnay waxa uu go'aansaday inuu jabiyo rikoorka adduunka ee muquurta. waa rikoor wakhtigaas u xidhnaa badmaaxa reer Masar ee loo yaqaano Axmed Jaabir oo gaadhay joog dhan 1090 fiit badda hoosteeda. waa dherer u dhigma 332 mitir. ha yaraysan joogan, sababtoo ah guriga aad joogto dhererkiisu waa 3 mitir oo keliya. 336 mitir waxay noqon kartaa fooq ka kooban in ka badan 110 biyaano. aynu u soo noqonno. Dr. Deep qorshihiisu waxa uu ahaa marka hore inuu gaaro 332 mitir si uu u jabiyo rikoorkii hore ee u xidhnaa badmaaxa reer Masar. intaas kadib uu hoos u dego uuna gaaro 400 mitir. dhakhtarku waxa uu bilaabay inuu doorto meesha uu ku fulin lahaa qorshahan muquurta ah. wuxuu doortay goob ku taalla badda Caribbean-ka una dhow jasiiradda US Virgin. qeexitaanka jasiiraddu waa dhul xidhan oo 4 dhinac ay biyo ka xigaan. runtii biyaha ku hareeraysan jasiiraddan waa biyo nadiif ah oo aad u qurxoon, weliba loo dalxiis tago maadaama ay u dhowdahay xariiqda dhulbalaha. biyaha jasiiraddan waa kuwa diiran oo dabaasha ku wanaagsan. sida aynu wada naqaano, marka aad gasho badda tilaabo walba biyuhu way sii badanayaan, dhulkuna hoos ayuu u fogaanayaa. hagaag intaas haddii aynu isla fahanay, waxaa jirta meel loo yaqaano gidaarka oo 250 kilomitir u jirta jasiiraddan. meesha dhulka tartiib uma fogaano ee hal mar ayaa la waayayaa. macnaha waa god dheer oo aan guntiisa weli la gaadhin. cabirkiisa waxaa lagu qiyaasaa inuu hoos u qodan yahay 3200 mitir. waa meel aan loo ogolayn cid kasta inay ku dabaalato, keliya xirfadlayaasha dabaasha ee caanka ah ama qof haysta shahaado caddaynaysa khibraddiisa dabaasha ayaa loo ogol yahay inuu ku dabaasho aaggan. dalxiisayaasha iyo dadka caadiga ah waxaa loo ogol yahay agaarka xeebta inay ku dabaashaan. halkaas ayay ka helaan biyo diiran, kalluun qurxoon iyo cawsbadeed cajiib ah oo la moodo kayn ku taalla badda hoosteeda. dadka qaar ayaa fadhiista agaarka meesha loogu magacdaray gidaarka. labada lugood ayay la galaan aagga halista ah, waxay dhabarka u jeediyaan dhinaca xeebta. xaggooda dambena waxaa ka muuqda cawsbadeed la moodo kayn dhirteedu ay faraqa isku hayso sida dad faqaya oo kale. halkaas ayayna ku galaan sawirro dhaxalgal ah oo aan quruxdiisa la qiyaasi karin. waxaan filayaa daawade inaad la socoto inay jiraan kamerooyin awood u leh inay sawir ka qaadaan ama ay muuqaal ka duubaan biyaha hoostooda. geesigu waa ninka meeshan habeen u dabaaltagaa. culimada daraaseeya nolosha badaha waxa ay sheegaan in aaggan laga heli karo xayawaanno aan hore loo arag. waxay sameeyeen tijaabooyin joogto ah. mararka qaar waxa ay kamerooyinka ku xidhaan nibiliga ama xayawaanada awoodda u leh inay gaaraan gunta hoose ee badda. arrinta ay ka yaabeen ayaa ah in xayawaanadani marka ay yimaadaan goobta isla markaana ay hoos u socdaan masaafo fog, ay degdeg uga soo noqonayaan markiiba. waxaad mooddaa inay ka soo carareen bahalo waaweyn. qaarkood waxa ay soo laabteen ayaga oo dhiig baxaya oo ay ku taallo qaniyo aad u weyn. muxuu ahaa xayawaanka nibiliga barhka goostay? talow intee ayuu isna leegyahay? waa sababta aqoon-yahanadu ku aamineen in meeshan ay ku sugan yihiin xayawaanno halisa oo aad u waaweyn, kuwaas oo aan u soo bixin xagga sare ee badda. waa xayawaanno nibiligu leeyahay kalluun basiid ah oo iska yar. haddaba daawade, Dr. Deep waxa uu soo diyaarsaday markab, wuxuuna soo kaxaystay tiim dhammaystiran oo ka caawiya jabinta rikoorka muquurta. ogtajiin, kamerooyin iyo qalab walba oo ay u baahnaayeen ayay soo qaateen. xaaskiisa iyo wiil u dhalay ayaa safarka u heliya. saaxiibkeen waxa uu wataa xadhig xagga hoose lagaga xidhay bir culus oo ay dusheeda ku qoran tahay 400 mitir. waxaa loogu talagalay in badda lagu sii daayo. Dr. Deepna marka uu maquuro uu soo calaamadiyo meesha ay ku qoran tahay 400 mitir. dabcan waxa uu wataa qalin wax ku qori kara biyaha hoostooda. haddii uu gaaro birta una soo calaamadiyo meesha ay ku qoran tahay 400 mitir, wuxuu dunida oo dhan u xidhay rikoor cusub. marka laga hadlayo muquurta, waxaa jirta tiro kale oo ku qoran meel dhexe, waa 332 mitir. tiradani waxay u taagan tahay rikoorkii hore ugu xidhnaa xeeldheeraha reer Masar. marka uu calaamadiyo labadaas meelood,
qorshuhu wuxuu ahaa inuu dib ugu soo noqdo markabkaas si uu ugu dabaaldego rikoodhka cusub ee uu dhigay. haddaba 15 Agosto maalin sabti ayuu digtoorku soo kaxaystay markabkii, asxaabtii iyo qalabkii uu diyaarsaday. saacaddu waa 6 subaxnimo. wuxuu xidhan yahay dharkii dabaasha iyo haamihii ogsajiinta. xadhiggii ayaa badda lagu sii daayey. gacanta ayuu taagay isagoo tilmaamay inuu diyaar yahay. sidoo kale wuxuu salaam u taagay xaaskiisa iyo wiilkiisa. intaas kadib waxa uu bixiyey tilmaam sheegaysa bilowga muquurta. biyaha ayuu ku degay. waxaa la socda caawiye uu helinaya inta uu gaarayo gidaarka oo u jira oogada sare ee biyaha masaafo dhan 60 mitir. mar walba oo hoos loo socdo iftiinku wuu sii yaraanayaa ilaa la gaaro mugdi dam ah oo aan isha caadiga ah waxba lagaga arki karin. waxa ay gaareen calaamadda koowaad. waxaa ku qoran 60 mitir. waa meesha loogu talagalay inuu kaga haro caawiyuhu. inta uusan ka harin caawiyuhu wuxuu bilaabay taymarka si uu xisaabiyo wakhtiga muquurta, sababtoo ah ogsajiintu waxa ay leedahay wakhti ay ku dhammaanayso. dabcan waxa uu wataa ogsajiin ku filan inta uu soo noqonayo, laakiin haddii uu habsaamo uuna dhammaado wakhtiga la qorsheeyey waxaa haysata dhibaato, wuxuuna u baahan yahay gargaar degdeg ah. waxa ay qaateen taxaddar dhammaystiran. ku darso xisaabto waxaa dhexda lagaga xidhay xadhig si uusan uga fogaan markabka ama loo soo jiido xadhigga haddii uu habsaamo ama la waayo. qorshuhu waxa uu ahaa in calaamadda dhexe ee 332 mitir uu ku gaaro wakhti aan ka badnayn 38 daqiiqo oo uuna taabto botan ku yaalla saacad gaara oo xidhan yahay, kaas oo saaxiibadii u tuuraya fariin tilmaamaysa inuu gaadhay 332 mitir. saaxiibkeen muquurtiisa ayuu sii watay. waxaa dhammaatay 38 daqiiqo ee calaamadda koowaad. lagamana helin wax fariin ah. waxay is yidhaahdeen waxaa qabsatay caqabad habsaamisay. tiimka caawiyuhu ma dhaafi karaan 60 mitir biyaha hoostooda. kumana jiro qof awood u leh inuu muquuro 100 mitir ee qorshaysan. marka laga reebo Dr. Deep ma haystaan qalab u suuragelinaya inay socdaan cabirka intaas leeg. sidoo kale wakhtigu uma ogolaanayo inay caawimo weydiistaan ciidanka ilaalada iyo agaarka xeebaha. waxa ay go'aan ku gaareen inay xadhigga soo jiidaan si ay bannaanka ugu soo saaraan. nasiib xumo waxa u soo baxay xadhigga oo madhan, waxayna garwaaqsadeen inuu dhintay oo aanu noolayn. ma gaarin calaamadii koowaad, mana gaarin calaamadii labaad. saacado badan ayaa ka soo wareegay. baadhitaan badan ayaa la sameeyey, lamana helin xitaa meydkiisa. khubarada qaar ayaa sheegay inay suurtagal tahay inay jiraan wax shabakeeyey oo ku kalifay inuu iska fududeeyo culayska haamaha iyo xadhiggii ku xidhnaa si uu isaga furfuro. waxaa shabakeeyey tuurista haamuhu. waxay gelisay inuu hawola'aan u dhinto. xadhigga uu iska furayna waxa uu ku lumiyey jihada uu markabku ka xigo. lama qiyaasi karo welwelka uu dareemay ilbiriqsyadii u dambeeyey noloshiisa. sidoo kale lama qiyaasi karo sababta uu dhintay. ma hawola'aan ayaa dishay mise xayawaan halis ayaa cunay. Dr. Deep kuma guulaysan inuu kaydka rikoodhka adduunka ee World Guinness Record kaga qayb galo muquurta ugu dheer, balse waxaa la odhan karaa wuxuu xidhay rikoodhka dhimashada meel aan laga helin ehel iyo aadami kale oo u gargaara midna. ugu dambayn waxaynu soo gaarnay dhammaadka muuqaalkeenna maanta. fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato kanaalka, soo dhowow oo subscribe saar, muuqaalkana like ku sharaf. mahadsanid.